si loo fahmo maanta waa in dib loogu noqdo taariikhda. Dhulka Soomaalida dabiiqadii qarnigii 19aad wuxuu noqday meel uu ka bilowday tartan gumeysi. Waqooyi waxa maamuli jiray Ingiriis, koonfurtana waxa maamuli jiray Talyaani. xuduudahaas la sawiray ma ahayn kuwo dabiici ah ee waa kuwo la bilaabmay gumeystaha. 1960kii 2 maalmood oo kaliya ayaa kala saaray madax banaanida labada dhinac. kadib midow waxaa la sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliya. rajo ayaa jirtay, hami qarannimo ayaa isaguna jiray. laakiin sanado kadib nidaamkii siyaasadeed ayaa isbedelay. awood maroorsi, xasuuq iyo cadaalad darro ayaa hadheeyay. 1969kii afkami military ayaa dhacay. nidaam cusub ayaa talada la wareegay. khilaafyo, dagaalo iyo cadaadis siyaasadeed waxay si tartiib ah u wiiqeen dowladdii dhexe. 1991kii nidaamkii waa uu burburay. hay'adihii dowladdu way kala daateen. awooddii dhexe way baaba'day. gobolladu waxay qaateen jihooyin kala duwan, qaab maamul, amni iyo siyaasadeed. halkan waxaa ka bilaabmay dib u curashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. taariikhdu ma aha sheeko hore oo kaliya, waa furaha fahamka loolanka ee maanta. khariidadu mararka qaar waxay qarinaysaa awood ka weyn intay indhuhu arkaan. gobolkani wuxuu ku dhow yahay marinbadeedka caalamiga ah ee Bab al-Mandab. waa meel aad cidhiidhi u ah oo isku xidha badda cas iyo badweynta Hindiya. kumanaan maraakiib ganacsi ah ayaa maalin kasta halkan mara, shidaal, badeecado iyo sahay kale oo caalami ah. marinkan ma aha oo kaliya biyo, waa halbowlaha ganacsiga dunida. haddii marnadani ay istaagaan isku socodkoogu, dhaqdhaqaaqa suuqyada caalamka waxaa ku imanaya isbeddel aad weyn oo runtii la taaban karo. ciddii saameyn ku yeelata marinkan waxay saameyn ku yeelan kartaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dunida. ma aha oo kaliya meel khariidad iyo istaraatiiji ahaan geographically meel muhiim ah, ee waa meel lagu cabiro saameynta ganacsiga iyo istaraatiijiyadda. dekeduhu waa halbowlaha dhaqaale. ma aha oo kaliya meel ay maraakiibtu istaagaan, ee waa meel lagu cabiro awoodda iyo quwadda waddankaasi uu leeyahay. maalgashi lagu sameeyo dekedo iyo waddooyinka isku xidha gudaha qaaradda waxay kordhinayaan xiisaha iyo loolanka gobolka. dalalka aan bad lahayni waxay u baahan yihiin marin ganacsi oo runtii dhaqaalahooga qayb weyn ka ciyaaraysa. marin kasta ma aha kaliya waddo ganacsi, ee waa xadhig istaraatiijiyadeed oo isku xidhaya dhammaan danaha waddankan iyo waddamada kale caalamka. dekeddu waxay noqon kartaa furo dhaqaale, waxay noqon kartaa albaab maalgashi, waxaa kaloo noqon kartaa meel lagu xakameeyo qulqulka badeecadaha gobolka soo maraya. markaa dekeddu ma aha oo kaliya meel maraakiibtu istaagaan, ee waa kaabo dhaqaale oo istaraatiiji ah. tartanka kaabayaasha waa tartan saameyneed. ciddii dhista waddooyinka, ciddii maamusha dekedaha iyo ciddii maalgashata kaabayaasha kala duwan ee waddamadaasi kulaalaya gobolkan waxa ay helaysaa saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed. gobolku maanta wuxuu noqday meel lagu tartamo maalgashi ahaan. ma aha dagaal muuqda, ee waa tartan xagga kaabayaasha ah. marinbadeedkan muhiimka ah, kumanaan maraakiib ganacsi ah ayaa maalin kasta mara oo sida shidaal, cunto, qalab warshadeed iyo sahay kale oo caalami ah. haddaba marka ay khatar soo baxdo, khatar amni oo gobolkan ah, dunidu way ka falcelisaa iyadoo lagu shaabadaynayo burcadbadeednimo, khatar amni ama hub si sharci daraa goobta u maraya. intaasoo dhanba waxay sababaan in quwadaha caalamigii ay sameeyaan joogitaan joogtaa oo ay ku samaysan saldhigyo sida Djibouti oo kale. siyaasaddu waa qaybta ugu murugsan. arrimahan aqoonsiga, dowladnimada iyo xiriirka diblomaasiyadeed waxay si toos ah u saameynayaan loolankan haddaan ka sheekeynayno. waxaanu bedeli karaa aqoonsigani jihada istaraatiijiyadeed ee gobolka. go'aanada dibadda ama go'aanada caalamiga ah
waxay saameeyaan maalgashiga, waxay saameeyaan amniga, waxay saameeyaan iskaashiga. dana gudaha ah iyo dana dibadda ah ayaa isdul saaran. su-aashu ma aha cidda joogta maanta, laakiin waa cidda saameyn ku yeelan karta bertole. haddaba ma aha mustaqbalku mid si fudud loo saadaalin karo, laakiin waxaa muuqda 3 awoodood. awoodda koowaad, iskaashi dhaqaale oo kordha, ganacsi furan, iyo maalgashi wadajir ah oo isku xidhnaanta gobolka kor u qaada. waddada labaad, tartan dekado oo sii xoogaysta, sida hadda ka taagan Jabuuti iyo Somaliland. kaabayaasha cusub, heshiisyo cusub iyo saameyn cusub. waddada saddexaad waa isbedel diblomaasiyadeed oo lama filaan ah, halka hal go'aan uu bedeli karo jihada mustaqbalka. hal shay waa hubaal, loolanka juqraafi siyaasadeed weli ma dhammaan, laakiin su-aashu waxa weeye yaa saameynta ugu badan ku yeelan doona sanadaha soo socda.